بسم الله الرحمن الرحيم. runtii caawa waxaan aad ugu faraxsanahay inaan halkaan isugu nimaadno inaan ka hadalno oo meel isla dhigno wixii maanta nagu soo kordha ama aanu ka aragno TV-ga ama maqaal aanu ku maqalno. waxaan jecelnahay in wax kastana sidii oo cadaalada ku dhisan iyo wanaaga inaan wax u maqalno anagana aan ku taageerno. runtii waxaan rabnaa markaan wax sheegayno anagana waxaan ugu bartay dad daacad ah u soo istaagay midnimada ummadda Soomaaliyeed ee qaranka banaadiriga inaan horseed ugu noqono aanu diidno wixii qaladaad ah oo ama cadaalad ku salaysan oo aanu ka soo horjeesano ayaan markasta annaga dastuurkeenu yahay sidaan ku heshiinay oo aan dalka UK sida daacadnimada annaga ugu taaganahay sidaasaa loo baahan yahay ummadda banaadiriga iyo ummadda Soomaaliyeed laga baratayna inaan saas wax ka bedelna nooma habboona taasina dambi ayaan ka qaadayna. waxaa fiican wanaagga qofka lagu barto jaaliyad wanaageeda ku socotaa ugudaanta hore in la siiyaa habboon. runtii aadaan ugu faraxsanahay sida wanaagsanoo caawa ka soo qayb gasheen oo aanu rabno inaan arrimahan falanqeeyo ama aan dhexgalo wixii maqaal nagu ah dadkana na dhageystaan fahmaan ujeedada annaga aan halkaan caawa usoo fadhiisan. walaalayaal runtii waxaad arkaysaan maalmahan oo dhan ayaa socda doorashooyin oo hadeertaan loo diyaargarooyo madasha wadatashiga Soomaaliyeed ee 2016 taasoo beel kasta Soomaaliyeed ay soo dooranayso dadkii ugu matali lahaa baarlamaanka iyo xildhibaanadooda. sidaas ay maalmahan oo dhan ay socotay TV-yada aad ka arkaysaan ama maqaalna nagu ah. runtii markaan u soo jaleeco ama u soo noqdo dhankeena banaadiriga, runtii banaadirigu waxaad arkaysaan dhibaatooyin maanta wada socda. dhibaatooyinkaasina ilaa ay haddana khilaafaadkeedana badan yahay. runtii adduunka waa leeyahay wax la dhahayo, ummad kasta waa leedahay dad la dhahayo mucaarad iyo muxaafid. annagana inaan mar kasta degdegno ama aan horboodno wax faa'iido lama keenayo. maxaa yeelay baraarujinta bahweynta banaadir waa beesha oo maanta reer banaadir ay ku tashanayso ayna ka warqabto oo maanta ay leedahay beesha reer banaadir waa UK dhallinyaradooda ee ku sugan maanta waa dad la og yahay lana aqoonsan yahay ummadda Soomaaliyeedna ay ka warqabto taasoo weliba dadkeena iyo odayaasheena iyo madaxdeena oo qaranka maanta noo matalaya ay ka warqabaan. sidaa awgeedna annagana ma rabna inaan dambaawno ama dhanna aan u badanno dhanna aan ka soo horjeesano. taasina wax faa'iido noo keenayso ma jiraan. taasina waa isaga digaynaa mar kastana waa isku waannaa. maxaa yeelay ummad dhan ayaan matalaynaa. ummaddii ilaahay cabsigiisa kugu amintay, ummaddii ilaahay cabsigiisa warka aad sheegto uu yahay war la yaqaano oo warkii ka soo baxaa guddigan baraarujinta bahweynta banaadir ee dalkan UK. wax alla wixii ka soo baxo waa midda keliya ay ummadeenna iyo ummadda Soomaaliyeed ay maanta si gooniha u fiirsanayso u arkayso. sidaa awgeed waxaa roon markaan wax sheegayno iyo waxaan ka hadlayno inay noqdaan mid mucayin ah oo dadkana ay ku farxaan. inaan waxaa la yidhi wax aad sheegto inagu farxo ayaa habboon walaalkaaga ugu farxo. laakiinse haddaad iska hadasho leh ama aad wax mucaarado taasi waa mid oo aan nafteyga ka soo horjeedo aanu aqbalaynin. بسم الله الرحمن الرحيم. maxaa yeelay wax kasto markii laga hadlaayo waxaa loo baahan yahay in bisinka lagu bilaabo. runtii waxaa dalka Soomaaliya dalkeena laga sameeyay guddi lagu magacaabayo guddiga khilaafaadka. guddiga khilaafaadka Soomaaliyeed ayaa waa guddi u taagan wax alla wixii qalad ah inay saxaan, wax alla wixii qalad ah ee loo geeyana
inay dib u fiiriyaan oo jawaab ka soo bixiyaan laakiinse sidii annaga nagu maqaal ah waxaa jiray dad odayaalo iyo dhalinyaro oo wax qoray taasoo ay qoraaladaasna ay ku dheeheen in doorasho ee dadkana ay wada og yihiin la wada sameeyey oo guddi la soo doortay guddigaasina 4 qof uu ka koobnaa 2 gabar iyo 2 wiil sida la sheegayay marka iyadoo saas tahay odayaasha beelaha banaadirigana ayagana ay iyagoo midaysan ay qoreen warqadooyin ay ku cadeynayaan nimankii markaasi uga matali lahaa baarlamaanka qaybta xildhibaanada nimankii ayaa waxay ku andacoonayaan in la dulseeyey maxaa yeelay wax alla wixii ay guddiga khilaafaadka u qoraan waxba kama soo baxo waa la hoos mariyaa jawaabna lagama siiyo taasina waxaan u arkaynaa mid ay ku salaysan tahay cadaalad daro tan kalena waxaanu aragnay in beesha reer banaadir odayaashooda xataa loo ogoleen iyo dhalinyaradooda inay hadlaan si xor ah ugu hadlaan taasoo laga mamnuucay loo diiday guddiyada markaasi ku shaqo leh inay u diidaan ay bayaan cusub ugu soo saareen ay u diideen inay xornimadooda inay u hadlaan sida ay rabaanna u hadlaan loo diiday waxaa dhacday inay baxeen odayaashii iyo dhalinyaradii ayagoo iswata annagana halkaan aan ka arkay facebooka iyo whatsappka iyo meelo badan oo ka arkay oo weliba laga soo deeyay meelo qaarkood taasoo ay heer waxay gaareen inay istaagaan xalana banaankiisa meesha xafiiska ku yaala guddiga khilaafaadka hortiisa inay ka qeyliyaan ayay gaareen heerkaas qoraxdaasoo jirto ayaa odayaashii meesha la geeyey marka dambe hadda waxaanu hadda arkaynaa in ay doorasho dhacday laakiinse doorashadii 49 qabiil sida lagu heshiiyey ee dadka qaarkooda ay sheegayeen 49 in istirareeb uu ka imaado guddigii markaas lagu heshiiyey banaadiriga iyagoo raali isaga ah inay u doortaan guddigii markaasi ugu xil qaban lahaa qaybta xildhibaannimo marka saa darteeda waxaa dhacday in si farsamooyin ah iyo caqabo xumo oo laysaga calool xun yahay in wax la isku doortay dadkii qaarkooda banaadiriga oona qaarna aanan kalsooni ku qabin qaarna oo aanu sida wax loo doortay ay u arkaya inay tahay mid cadaalad daro ah marka taasina waxay keenaysaa hadhowtii waxay noqonaysaa idinkana aad ka warqabtaan in hadhowtii annaga haddaan baraarujinta bahaweynta banaadir nahay waxaan markasta taageeraynaa aan jecelnahayna soo dhaweynaynaa in waxa laysku wada faraxsan yahay oo laysla og yahay in laysku doorto sidaa awgeed walaalayaal waxaan annaga ummadda banaadiriga walaalahayga odayaashayga xukaashayda siyaasiyiinteeda aqoon-yahanadeenna oo dhan waxaan u sheegaynaa oo naga go-an inay bayaanka hadda aan soo jeediyey inay jawaab ka soo bixiyaan maxaa yeelay 49 qabiil banaadir ma yara dhalinyaro ay leeyihiin odayaal ay leeyihiin waxgarad ay leeyihiin haddii nimankii dadkii meesha laysu keenin oo sidii markii wixii lagu heshayna aysan wax u dhicin taasina annaga waxaan u arkaynaa inay tahay mid quursi ah oo cadaalad daro ku salaysan sidaa awgeed walaalahayga reer banaadir waxaan idin sheegayaa oo aan aad ugu faraxsannahay inaad jawaabkooda soo siisaan haddaan qaldannahayna oo aad naga jahil bixisaan sida ilan waxbaan maqalnaa waxaan maqalna waxaan nahay jawaab fiican inaan helno oo waafi ah berito markii xildhibaanadeena ay dalkan UK imaadaan annagana ugu soo istaagno safka hore ugu jirno soo dhaweyno maxaa yeelay waa mid aan leenahay oo cadaalad la isla wada ogyahay ummadda banaadir raali isaga tahay ayaa lagu soo doortay inaan nidhaahno aan ugu istaagnaa jecelnahay sidaa awgeed walaalayaal waxaan annaga ummadda banaadiriga walaalahayga odayaashayga xukaashayda siyaasiyiinteeda aqoon-yahanadeenna oo dhan waxaan u sheegaynaa oo naga go-an inay bayaanka hadda aan soo jeediyey inay jawaab ka soo bixiyaan
محايا لي أفرتني سياق قبل بنادر من يرى dhalinyaro ay leeyihiin odayaal ay leeyihiin waxgarad ay leeyihiin haddii nimankii dadkii meesha la isu keenin oo sidii markii wixii lagu heshiina aysan wax u dhicin taasina aniga waxaan u arkaynaa inay tahay mid quursi ah oo cadaalad darro ku salaysan sidaa awgeed walaalahayga reer banaadir waxaan idin sheegayaa oo aan aad ugu faraxsannahay inaad jawaabtooda soo siisaan haddaan qaldannahayna oo aad naga jahil bixisaan sida ilaan waxbaan maqalnaa waxaan rabnaa jawaab fiican inaan helno oo waafi ah berito markii xildhibaanadeena ay dalkan UK imaadaan annagana ugu soo istaagno safka hore ugu jirno soo dhaweyno maxaa yeelay waa mid aan leenahay oo cadaalad laysla wada ogyahay ummadda banaadir raali isaga tahay ayaa lagu soo doortay inaan idhaahno aan ugu istaagnaan jecelnahay laakiin haddii ay dhacdo in nin kastana oo loo arko in cadaalad daro uu ku yimid ama lagu soo doortay ama qabyaalad loo wixii uu ku yimid hadday noqoto dhibaato sidaas ah marka annaga dhibaatadaasi runtii haddaan meel u jallecno ama aan idhaahno annagana nimanka waa taageerina wixii ka soo baxay iyagoo qaldanyina waxaan leenahay waa taageero buuxansiina waa saxsan yahay taasina waxay annagana noqonaynaa dad cadaalad daro ku dhisan cadaalad daro ku heshiiyey taasina waa mid bibi banaadir ka reeb walaalayaal waxaan idin sheegayaa runtii mar kastana aan soo dhaweynaynaa in banaadir ay yihiin dadkii cadaaladda iyo wanaagga iyo midnimada qaranka ummadda Soomaaliyeed ugu jira safka hore ee maanta lagu kalsoon yahay haddii annaga dhexdeena oo aan wax si xaq ah ama dastuur noo qoran waxaan ku heshiin weynay haddaan meesha la imaano oo aan si xaq daraa wax ku samayno ama aan isu soo doorano taasina wax faa'iido noo keenaysa ma leh walaalkayga aniga iga xumaadeena wax faa'iido maanta aan ka helaya ma leh mucaarad inaan yeeshana waxaa ka fiican ama waxba helinba haddii runtii wax kasto waxaa loo baahan yahay in adiga aad u horseedo nabadda iyo wanaagga xataa wixii adiga aad awoodid aad heli karta xataa haddaad ugu sababto qof walaalkaaga ah waa midda keliya ee guusha lagu gaari karo walaalayaal haddeertaan waxaan rabaa inaan soo gulaanado aan gabagabeeyo maxaa yeelay waa hadal badiyey hadal badanna haama buuxshaa la yiri hadalkana hadduu socdana waxaa dhici karta inay qalaadaad iga dhacaan waxaan ilaahay ka baryayaa in waxaan ku hadlayna inaysan wax qalad ku jirin oo dadka ay dhegaysanayana ay aad ugu farxaan oo ay jeclaystaan xataa iyagana inay jawaab buuxa ka soo bixiyaan sida oo aad dhammaantiina dadka Soomaaliya waddanka maanta jooga ilan qurbaan ka joognaa ayagaa naga warqaba wax alla wixii ka socda meeshaasi hadday xaq tahay iyo hadday xaq dari tahayba sida wax la isku soo doortay ayagaa ka warqaba anuu waxaan jecelnahay in jawaab nala soo siiyo oo buuxda ah annagana mar kastana taageero ayaan u taagannahay waxa ururka oo u dhisannahayba waxay tahay inaan annaga mar kastaba difaaca hore ugu jirno dadkeena difaaca dadka ugu jiraan nahay heel iyo hoobana u hayo ummaddeena qaranka banaadirigaasi wax alla wixii dhibaato ku soo kordhaa inaan u istaagno wixii carqalad ku sameynaya inaan ka qabanno taasaa ururka bibi banaadir ugu dhisan yahay waana ka warqabtaan runtii waxaan leeyahay Soomaaliyeed walaalayaal banaadiri waxaad tihiin qarankii maanta ee ummadda ay ku tashan lahayd qarankii maanta oo u horseedi lahaa kamana dhalinta qaran Soomaaliyeed oo midaysan oo nabad ah iyo dhul degan dad waxaad tihiin xadaaradii maanta iyo dadkii laga soo gaaray hooyaashooda diinta ayaa tihiin marka waxaan leeyahay walaalayaal isku waaniya iswada qabta annagana lagu dhiirigeliya in aan wax kasto wixii si wax u dhacayna inay yihiin mid xaq ah oo cadaalad ah
taasina ayaan ku faraxsannahay. Asalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.